ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa Kalamaane oo duceeyay allay leedahay aryaada heer Kalamaano waxaan idin weydiiyaa waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale war maanta ma waalatay dalka ninkii lacag lahaa iskale war dalkan musuqmaasuqa iskale war dalka siyaasiyiinta iskale war dalka Soomaaliland baa iskale war dalka dadkiisiba iskale war dalkan dawlada shisheeyaa wax ku leh war dalka deyntii waa laga cafiyay dalka waxa iskale dhalinyarada lamana joogo xilli la isweydiiyo dalkan yaa leh aryaada warka hayga dhaxgelina heesta lamaastirte ninka daacad u ahaale wadaniga dadaalaale war Abdullow heesta waad ka kala tagtay kan qabiilka diidaale midnimada u doodaale dal ninkiisiba iskale dal ninkiisiba iskale aan maqli jiraanu war wala weynay dalka miyaa la idinku haystaa waryaada waxaa la yiri dhulka lama amaanaysan karo eragsideedii afartaa ka la isku ma ogola aag yar oo la eg Israa'iil ba Falastiinta may kala irdhoobeen waxa oo foreerka ku riday waa ildu fore taliska nugulo niya jabka oo nafla caariga naxashka saaran oo miya la ilaabay nabadii wanaagi waa adiga naceenu hanoogina ma tirahdaan warana waxa la yiri geel waa kaanaga wax ku faanu waaye ilaa hadda dawladda Soomaaliya kama hadlin ma arintaas Soomaalida hasheedii surka alifka ku lahayd ninkii sidigiis iriyow ka siisan mayne labadeena seefood waa tiisa ur noqota labadeena seefood waa tiisa wir noqota aan xusuusaha anina may baa xasuusade haddii oo bai jabo ma hawesta boode hambosa yaan laga toline war ma haysiine wadaadadii dhuusamareeb ka tagay waa kuwii garoowe isugu tagay kadibna shirib hore oo si kale loo bedelay reer dhuusamareebeed u tiriyeen waxayna dhaheen haddaad ka guursay galgaduud garoowe goofma kugu yaal hayehe arrintaas macallin maxamuud xaw uga jawaabahe warani may dheediga jiray malaag muude ma marooraw maalinka may gaala ilo meelaha ka gashan soo doonay reedka dambanta ka foori ridoon garoowe xooka soo gurma galmudug guulka keenima garoowe xooka soo gurma galmudug guulka gaarima waraanugi fogaanaya gabay buu tiri horta beriga show axmedow furuqalahan uga bagow noo tirahayo maadna hor keentidaan aragne war Axmed waranle markoo rabo inuu cid wax ka sheego ayuu ku marmarsooda canugan gurigooda jooga wuxuu yiri ma dariiqii xamar dadka lagu dilo dib in loo dhisaba qola diidanee dab ku shidatay baa difaac loo leeyahay ciidankii dalkuna ma diyaarad bay degaan nabad ahaa ugu duulayaan war olagu siga may baan sheegase geed sarwaabiyaal way dadkaas la keenide aryaadaha wadadii u dhaxaysa xamar iyo afgooye minaan la dhisayno tabar lagu difaacan la waaye dadka ma loo furo heesaga hadaafaane war madila abuurka dambe kooy furo leeyin aan goradayna mantun war kuwii muqdisho ku yeelo la deectiray ayaa dhagax dhigay xumbaal saasay ahayd war wadada afgooye habeenkii la soo maraa maalintiina dadka waa ka xiran tahay war hamiinki dadka maraw jeeb jooko marahayaan fura lixmiya war wadooyinkiin qaba qowsanba war furaaga li aliska arafay fura afar ee ka damboy anigu fura sideedan ku shaqaynaya weligayna ku shaqayn jiray kutubay gurigan iyo siyeed maarta ka aado ku soo naqamaysido saddexdaadiyaan faraha ku gala cambarana hadda ka hor ku kala tagna sidaan oo kale yadaha Kenya ciidankeedu amba ha joogan amba ha la baxeen waxa la dhahay weewe waxaad wada jooji waryaada Kalamaan maanta guul wadanimadiinu waa saa'ide makaankii aad u heesteen aryaha wareerin
kalamaan kenya iyo soomaaliya dhexdhexaad kama ahe waa soomaali dhabahe warnamiyow nimanta kalamaan leey dhagan shoma boqorada sanbaysan dawla amalo ama jiir amalo lankiyo ka dhagan fadayaan afuufayaan marka hore waraad reer kalamaanow xanta siyaasaddu waxay leedahay wasiirka arrimaha gudaha Kenya ee Soomaaliya iyo maalintii dhaweyd asumad buu wadaa leeyri madaxda Soomaalida si loo wada hadlo waa ka caga jiideen baa leeyri maantana Itoobiya dacwad waadaa leeyri si Soomaaliya ay ugu cadaadiso in la wada hadlo Itoobiya muga ma habartaan yaa ma sawa adoogan ya muga Kenya nugu dacweeyhayo waryaada wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waa qarafaan doorashadii galmudugana noogu war dambeysay war wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waa cawad darraatana waa kii VOA la hadlay war wasiirka amniga Soomaaliya waa islow oo waa kii maalin dhaweyd markuu imaanayay coronavirus laga baaray war wasiir Khadiijaba libax laba ma ay tiri war waxa la yiri wasiirka maaliyadda Puntland xasan shire abgaal isagoo mushaarkii shaqaalaha rayidka iyo kii ciidamadaba laga sugayo ayuu ka arqaxooti Sweden u aadaa leeyri aryaadaha yaa nalarnabin arrintaas xabad kama ogine war hadda ku xilalkan oo hayo ma qaxooti ka arqaata war wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland wuu beeniyay heshiiskii Berbera inay Itoobiya ka baxday aryaadaha warara iyo wagaga iyo weyle cilid iyo waayeel iyo wax warba jooga wax cad noola imaan naga taga tog barwaaqa tage